sharci wadamarista oo ay ku shaqeeyaan ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafiko ayna mas'uul ka tahay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka jira, laakiin badqabka in lagu dhaqmo sharcigaasi ayaa lagala kulmaa dhibaatooyin adag. Gaadiidka dadweynaha, kuwa dawladda iyo ciidanka dhaliilo ku aadan in aan la qaadan taariko ama qofka darawalka ah in aysan u dhamayn shuruudaha laga rabo waa kuwa ay hadda dooda ugu badan. arrimahan oo dhan waxa ay kor u qaadayeen shilalka. waxaa socda dadaal lagu doonayo in caqabadahaasi lagu xalliyo laguna yareeyo shilalka ka dhaca caasimadda. wadooyinka oo aan lahayn samaafaraha kala haga gaadiidka noocyadiisa kala duwan, inkastoo ay adag tahay in si dhaqsi leh ay u fahmaan. taasi waxa ay kor u qaaday shaqooyinka ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafiko. inta aan ka warhelna anaga maalintan shil mooto bajaaj dhicin oo dhimasho markii la isku celceliyay 3 qofood maalintii mooto bajaaj shilkeeda aan soo gaaraa waa markii celcelis ay tahay oo sababta mooto bajaaj dadka labada dhinac ka raacayo oo darawalka dhaxda ku jiro. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku adag in mudnaan gaar ah la siiyo sidii bulshada loo gaarsiin lahaa shuruucda gaadiidka iyo kuwa wadamarista. sanadkii soo dhaafay waxa kamid ahay qorshooyinkeeda inay diiwaan geliso gaadiidka dawladda. waxa kamid ahay inay la wareegto shaqadii ay qaban jirtay shirkadii Modern Technology taariikhda iyo laysimada. waxa kamid ahay inay diyaariso sharciga aviationka. waxa kamid ahay sharciga traffic actiga wadamarista. waxa kamid ahay inay diyaariso mideynta taariikhooyinka iyo laysimada iyo diiwaangelinta gaadiidka dalka. wasaaradda gaadiidka ayaa diiwaangelisa dhammaan gaadiidka dalka la keeno. waxa ay sidoo kale doonaysaa in ay korjoogtayso nidaamka in uu sidiisa u shaqeeyo. waxa kale oo wadnay asagana qorshaha noogu jiray oo tubta dhaqaalahana noogu jiray sharciga wadamarista traffic actiga. runtii annagu shuruucaan lahayn dalka dawlad oo burburtay aan ahayn, shuruuc waa lahayn, laakiin sida aad ogtahay shuruucdii wadanka waxay ahaayeen shuruuc oo unitary system ah oo yacni siyaasadda lagu saleeyay ay tahay dawlad dhexe oo dalka iyadu maamusho. maantana sida aad ogtahay siyaasadda waa ka buurnay. waxaa khasaba marka shuruucdii in dib loogu noqdo. shuruucdaas marka annaga noo qorshaysnay inaan dib ugu noqono waxaa kamid ah sharciga wadamarista traffic actiga. runtii waa diyaarinay activitieska aan u qorshaysanay meeshii ugu fiicneedu noo maraya. sanadkii hore waxaa jiray ku dhawaad 1,000 shil oo geystay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare hantiyadeed, waxaana shilalka ugu badan galay mooto bajaaj sida lagu cadeeyay warbixin sanadeedkii taliska ciidanka ilaalada wadooyinka Muuse Cismaan Abtow. telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.